kulanti wacan oo wanaagsan qodobada aynu idinkaga hayno wararka arrimaha Soomaaliya waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Axmed Madoobe oo tanaasulaya xogta wadahadal xasaasi oo ka socda Nairobi Kenya iyo Ethiopia oo Madoobe ku qanciyay qorshaha filla Soomaaliya haddaba goorma ayaa lagu dhawaaqayaa go'aanka ugu dambeeya ee lagu soo afjaraya xiisadda Jubbaland iyo filla Soomaaliya Turkiga oo muujiyay sida ugu weyn tahay Soomaaliya kadib heshiis taariikhi oo dhaxmaray labada dhinac muxuu yahay heshiiska cusub ee Ankara iyo Muqdisho faahfaahinayaan idinkaga hayna Mareykanka oo ku dhawaaqay tirada muhaajiriinta Soomaalida ah ee la rabo in laga tarxiilo dalkaas Puntland war cusub ay ka soo saartay dagaalka ay kula jirta Daesh xilli ay hoos u dhigtay xiisadda Ethiopia ee ka dhalatay beegsiga Ethiopiaanka ku nool deegaanada maamulkaas u diyaar garooba saaxiibayaal qodobadaas iyo kuwa kale dhameystiran inuu ku soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waa 30ka bisha koowaad ee January sanadka 2025 markale kulanto wanaagsan saaxiibayaal waxaan ku horeynayaa dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland Axmed Madoobe hogaamiye ayaa la sheegayaa inay isku soo dhawaadeen kadib wadahadallo toddobaadyo ka socday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya wadahadalladan oo si aan toos ahayn garwadeen uga hayeen dawladaha Kenya iyo Ethiopia ayaa la soo warinayaa meel wanaagsan inay soo gaareen dhinacyada filla Soomaaliya iyo Jubbalandna isfaham hordhac ka gaareen macluumaadyada aanu helnay waxay sheegayaan in filla Soomaaliya xooga saaraysay Axmed Madoobe lagu qanciyo qorsheeda ku aadan doorasho qof iyo cod arrintan oo muddo dheer u diidanaa hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa la sheegay in iminka dabacsanaan uu ka muujiyay wararkan helnay waxay sheegayaan in hogaamiyaha Jubbaland lagu qanciyay inuu tanaasulo isla markaana boorsooyinku ka xirxirto xukunka Jubbaland inkasta oo macluumaadyada aynu helnay aysan xaqiijin waxa Axmed Madoobe lagu qanciyay iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxay uga bedelanayso ka tagista xukunka Jubbaland haddana wararku waxay sheegayaan in dawladaha Kenya iyo Ethiopia dadaal badan ku bixiyeen sidii Madoobe meesha uu kaga tagi lahaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa diiday isku day kasta oo dhinacyadu ku wada hadli lahaayeen waxaana ay ku adkaysatay kaliya in Axmed Madoobe xafiiska uu baneeyo arrintan oo dadaal dheer Kenya iyo Ethiopia ay geliyeen ayaa la sheegayaa in hadda meel wanaagsan ay soo gaartay una dhowdahay hogaamiyaha Jubbaland tanaasul inuu sameeyo macluumaadyadaan oo laga soo xigtay ila ku dhow dawladda Kenya ayaa xaqiijinaya in Madoobe markii hore si weyn u diiday doonista dawladda federaalka Soomaaliya iyo soo jeedinadii xubnaha dhexdhexaadinta waday ugu horeeyaan sirdoonada Kenya iyo Ethiopia waxaa la sheegay in madaxweynaha Kenya dhowr jeer uu la kulmay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe arrintan uu kala hadlay waxaana Kenya la sheegay in Axmed Madoobe ku cabsi gelisay inaysan sii taageeri doonin haddii uu ka dhig adeego soo jeedinta wadaan inkastoo xogaan ay leeyihiin kuwa hoos oo markaas isbedeli kara haddana waxa ay sheegeen dabacsanaanta Axmed Madoobe uu ka muujiyay diidmada uu kala hor yimid dawladda federaalka Soomaaliya xogo waxay intaas ku sii dareen wadahadalla inay socdaan inay muujinayso in dawladda federaalka Soomaaliya aysan weli si toos uga hadlin tallaabadii Axmed Madoobe uga soo baxay magaalada Kismaayo kuna yimid Nairobi socdaalka Axmed Madoobe oo warbaahinta gudaha iyo tan dibadda si weyn u buunbuuniyeen loona ekaysiiyey inaysan ka warqabin dawladda Soomaaliya ayay wararku sheegayaan in filla Soomaaliya si hoos uga warqabtay socdaalkan isla markaana la doonayay in Madoobe looga dhaadhiciyo ka tanaasulka xukunka Jubbaland markaana dawladda Turkiga ayaa muujisay muhiimadda uu leedahay Soomaaliya waxaana xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee IKB ee talada Turkiga haya uu heshiis la galay xisbiga siyaasadeed ee ugu weyn Soomaaliya ee talada haya laguna magacaabo midowga nabadda iyo horumarinta waxaana heshiis rasmi ah kala saxiixday xogayaha xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Xuseen Dawaa iyo xogayaha xisbiga talada haya dalka Turkiga saraakiil Turkish ayaa u sheegay wargeyska Middle East Eye in heshiiska labada dhinac uu yahay mid lagu horumarinayo xiriirka labada dawladood iyo in labada xisbi ee talada haya ay si qoto dheer u wada shaqeeyaan saraakiisha Turkiga ee la hadlay Middle East Eye ayaa sheegay in Turkigu muhiimad weyn u siiyo Soomaaliya isla markaana marka la joogo gobolka Geeska Afrika uu yahay dalka koowaad ee arrimihiisa uu kala tashanayo saraakiisha Turkidu waxa kale oo sheegeen in heshiisyo noocan ah Turkigu uu la galayo Ethiopia iyo Djibouti ha yeeshee dalka ugu muhiimsan dhammaan wadamadan ay tahay Soomaaliya xisbiga talada haya ee madaxweyne Erdogan ayaa muddo 10 sano xukumayay Turkiga waxaana uu haystaa way aragnimo dhanka hogaaminta iyadoo heshiiska uu la galay xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee muujinayso sida Ankara ay u doonayso xukunka inuu sii joogo Xasan Sheekh Maxamuud Turkiga ayaa dhexdhexaadka arrimaha gobolka Geeska Afrika waxaana lagu xasuustaa
dhexdhexaadintii uu sameeyey dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo isku haystay muran ka dhashay marinbadeedka badda cas kadib markii maamulka gooni-goosadka ku dhawaaqay Somaliland heshiis badeed uu la saxiixday dowladda Itoobiya. Turkiga ayaa aad u taageera dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu muujiyay sidoo dadaal ugu bixinayo dhismaha dowladnimo awood leh oo Soomaaliya ka hana qaada. waxa uu tababaraa ciidamo badan sidoo kale waxa uu qayb ka qaataa kabka miisaaniyadda dowladda. waxa sidoo kale uu maamulaa ilaha dhaqaale ee dalka sida garoonka diyaaradaha Dancadde iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Turkigu sidoo kale mashaariic horumarineed ayuu ka fuliyaa gudaha Soomaaliya. waxa uu Muqdisho ku leeyahay saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. sidoo kale waxa uu Muqdisho ku leeyahay safaarad ku fadhisa dhul baaxad leh oo malaayiin dollar dhismaheeda la geliyay. markana Mareykanka ayaa ku dhawaaqay tirada Soomaalida ee dhawaan laga soo tarxiilayo gudaha dalkaas. hay'adda socdaalka iyo kastamada ee Mareykanka ayaa sare u qaaday dadaaladeeda la xiriira tarxiilada muhaajiriinta sharciga haysan iyadoo Soomaaliya hormuud u tahay wadamada Afrika ee sida gaarka loo bartilmaameedsanayo. tirada muhaajiriinta Soomaalida ee la doonayo in dalkaas laga soo celiyo ayaa gaaraya 4090 taas oo ka turjumaysa baaxadda howlgallada lagu beegsanayo muhaajiriinta Soomaalida ee dalkaas ku nool. waxaana ku xiga Soomaalida dalka Nigeria oo iyagana laga soo tarxiilayo 3690 kiis. Gaana ayaa iyaduna 3228 qof laga soo tarxiilaya sida wararku sheegayaan. culayska saaran hay'adda ICA ayaa si xooggan u kordhaya tan iyo markii talada dalkaas uu la wareegay Donald Trump madaxweynaha cusub ee Mareykanka iyadoo la raacayo siyaasadiisa adag ee la doonayo in degdeg lagu fuliyo. kumanaan Soomaaliya ee ku nool dalka Mareykanka si sharci darro ku galay ayaa wadnaha farta ku hay waxaana howlgallada ugu horeeya la sheegay in lagu beegsanayo dad Soomaalida ugu horeeyaan. sidoo kale walaaca ugu weyn ee ka jira Mareykanka waxa uu yahay in Trump uu soo saaray sharci degdeg oo dib u eegis loogu sameynayo carruurta ku dhashay Mareykanka ee iska dhaleen waalidiintan haysan dhalashada Mareykanka kuwaas oo iyaguna noqon doona dad aan sharci ku lahayn Mareykanka. siyaasaddan ayaa walaac xoog leh ka dhex abuurtay u doodayaasha xuquuqda aadanaha kuwaas oo ka cabsi qaba inay sii adkaato kala tagga qoysaska isla markaana horseedi doonto xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Soomaali badan ayaa aad uga walaacsan inay saameyso seefta raafka ah ee Donald Trump uu ku dhawaaqay. gudahaan waa laga tada wararka arrimaha Soomaaliya intaanu midnimada ku kulmayno nabadgelyo.